لا نحين بريق إيدو نفتا لا نحين إيدو نعب لغا نحين نفتو ديدنا وأكتهين عدوا جوغا نعابكي نفتو ديدنا سوغيس بريغا نارا سوغي أنا maanta halkan waxaan kamid ahayn waftiga oo madaxweynaha uu hogaaminayay waxaan ka nimid masaajid Cali Guduud halkan waxa loo yimid oo loo soo aaday kormeer iyo dhiirigelin ciidamadii halkan cadawga ka xoreeyay Maxamed Saciid iyo Nuur Dugle iyo tuulooyinka u dhow in loo hambaliyeeyo xildhibaanadii iyo saraakiishii hogaaminayay ayay arintu ku saabsanayd waana runtii waa soo gaarnay wixii ay qabteenna hadeer waa looga mahad celiyay madaxweynahana mahad celinta ugu dambaysa leh halkan arintaas ayaa loo yimid waa mahadsan yihiin ciidamadii halkan qabtay waajibaadkooda ay qabsadeen intaas kaliya maahane waxa laga rabaa waajibaad waxa sugaya Soomaaliya oo dhan horta inay cadawga laga xoreeyo gaar ahaan hadda gobolada ay ku wajahan yihiin hiir Shabeelle Galguduud iyo Mudug goboladaas hadda ay ku wajahan yihiin inay cadawga ka xoreeyaan waa runtii waana ka muuqata yaani wajiyadooda farxadda ka muuqata waa insha Allah taala maalmo dhow inay meelahaas gaari doonaan waa rajaynaynaa waana ku faraxsanahay waxa ay qabteen marka waxaan leeyahay cid kasta oo Soomaaliya oo muwaadin Soomaaliyeed oo ama dalka ha joogo ama dibadda ha jooge waxa waajib ku ah cadawgan khawaarijta inuu la dagaalamo xoogiisa ku bixiyo xoolihiisa ku bixiyo fikirkiisa ku bixiyo ayaa laga rabaa